خذ يا كتاب الله كل حياتي، شرف كياني في الوجود وذاتي. أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا ليال أدونك ميل أدك جوجتان با وحن هوذا دين صومرين يا سلام آدي آد غالوة قارهان تيفيغان قرنك قيبتيسا ودنك كندا مقالة تورنتو أيان سيقوني أن هوذا سلام أقوم مرينيا أو يقوم مرتي قاضي أنا يقوم مرتيئة. أما موضوع أن دون يئنا إذن لو ذاقو وموضوع هذه آد معان، وموضوع هذه آد أقيم بضن، وموضوع قلبي يقو آد أقوم فرح سنية هاي مركي آن كهالليو محايا وموضوع أمضي ذا خصية، أمضي ذا الصوماليات أيو خصية، وموضوع خصية رجا واوين إيا دمركا إيا سياسيينتا إيا مالقبيندا إيا علومدا إيا دعادا إيا قفك شقالها متك أوغو السرية إيا متك أوغو هوسية. موضوع خصية أيان دونيا إنان مانتا إذين صوبان ديغو بإذن الله تبارك وتعالى. موضوع عطلو مقعيه محي كولاتاي موضوع مانتا أنكاهلي دونو وموضوع قلبي غاقا حديد لله أو إندهاقا حديد لله oo dhagahaaga xidhiidh la leh oo jirkaaga xidhiidh la leh oo cumrigaaga xidhiidh la leh oo liibaantaada xidhiidh la leh sacaadadaada xidhiidh la leh farxadaada xidhiidh la leh. mawduuca waxaa la yidhaahdaa sideen oo u helaa lamaano wanaagsan, sideen u noqon karaa lamaano ku nool raaxo adduunyada aakharana biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ee jannada isku gala. mawduuca waxaan doonayaa inaan qaab ooga hadlo dhowr qodobo inaan ooga hadlo aan doonayo inaan soo khulaaseeyo. isku day marka dhagaysto inaad aad ila socoto inay ku anfacdo ayaan rajaynayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. awalan qodobka koobaad, lamaanuhu waxaa la doonayaa inay si wanaagsan isu doortaan. qofka reer baadiyihii goorta uu doonayo inuu xoolo u sahmiyo ama reerka u sahmiyo, yacni wuxuu u raadiyaa meel degaan leh oo aan qaniin lahayn, oo aan abaar ahayn, oo aan oomano ahayn. wuxuu degaan oga raadiyaa reerkiisa waayo waa jecel yahay, xoolihiisa waayo waa jecel yahay. meel raaxo badan oo biyo leh ayuu u raadiyaa. maxaad u malaynaysaa marka? lamaanuhu waa mustaqbalkii, waa cumrigooda inta ka hadhay siday u wada noolaan lahaayeen. idan sahan baan u baahannahay qodobka koobaad. saasuu nabigeennuna baray sala allahu calayhi wasalama. haweenka 4 nooc baa loo guursadaa, 4 qaab. qurux rag baa ku doorta, war quruxdu way dhammaani. xoolo rag baa ku doorta, war xooluhu way dhammaani. qoys wanaagsan bay ka dhalatay, in la colloobaaba laga yaabaa. laakiin midda diinta la dooro. qodob gooni ana waan oga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo. gabadhana waxaan leenahay ragga waxaa lagu doortaa diin iyo akhlaaq. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh. hadday ragow idin yimaadaan dad akhlaaq iyo diin leh, gabdhihiinna ha u diidina. waa reer hebel ha ugu diidina, waxba ma haysto ha ugu diidina. diinta iyo akhlaaqdu ayadaa xoolo ah, ayadaa farwo ah, ayadaa raaxo ah. qodob baan kaga hadli doonaa mar kale insha allah haddii alla yidhaahdo. qodobka horta waa qodobka koobaad oo raaxada guriga ka qayb qaadanaya, oo anna waan sahmiyey adiguna waa sahmisay. idan dhul dooxa ah oo degaan leh, oo aan qaniin lahayn, oo aan colaad lahayn, oo biyo leh, oo barwaaqo leh, oo roobka uu korka samada kaga keenay, dhulkina uu biyihii aqbalay, kadibna doog iyo daaq dad iyo duunyo ay ku doogsadaan soo saaray ayaan u guuraynaa aniga adiga. haddaba waan israacaynaa ogow, halkaasaan geedi u nahay ogow, waayo waa soo sahmisay, anigana waan soo sahmiyey. qodobka labaad oo muhiimka ah waa annadar,
وإن لبدا قف إسكفي وإنه مدك كلا إسكفيريو محايا لي نبينا وحنا بريا صلى الله عليه وآله وسلم أركتي داسي إني نقون كرتو أركتي دا نولشو أي كود دائمي كرتو سي أوسن قفك كلا مركي قرق الله كانوا أوسن أولي يابين أوسن لهن نعم أرنكا ومهم أغادا إن ليس إيغو وجيغا قفك كلا وجيغي سإيغو أهرتا أوكو قنعو halkaa waxaa iigu jira baab la yidhahdo baabu shukaansi iyo baab la yidhahdo baabu xudxudasho si khaldan baa hadda wax loo shukaansadaa si khaldan baa wax loo xudxutaa been baa inta badan laysu sheegaa walidaalika ayaa hadhowta waxaa dhici doonta qodob hadda ka hor aan ka hadloo la yidhaahdo saa kuuma haysanin saa kuuma malaynaynin wiilkii wuxuu leeyahay markuu gabadha shukaansanayo annagu geesiyiin baan nahay maalqabeenna ayaanu nahay boqorriyo ugaasyaan ka soo jeednaa dadka dhan baabana yaqaana mid dhow iyo mid dheer gacantayadu way iska furantoo dumarka waxbaba ooma xisaabno waan ku kallarayni oo waan ku casayni oo faa waan ku siini oo bunni baan kaa dhigi qof saa u taagan oo cajaa'ib badan baan kaa dhigi gabadhuna waxay leedahay aniga maxaad iga taqaanaa waxaanu dad hooyo marwa'a baa i dhashay aabba la yaqaana ayaa i dhalay gabadh waxaan ahay adduunka ma u malaynayo gabadh iga gaarisan inay adduunka jiri doonto cuntadayda aad cunto cuntada aad cuni doonto waxaad ka shikin doontaa talow ma sokor baa lagu daray ma sonkor baa lagu daray ma malab baa lagu daray ayaad ka shikin doontaa waaba nala yaqaanaaba annaga hase yeeshee markii laysu imaado oo gurigii layskugu imaado si kale ayaa la noqdaa idan shukaansiga yaan been laga sheegin ee run iyo xaqiiqaha laga sheego qodobka kale oo raaxada lamaanaha aan u bixinay waa as-sam'u wat-taaca waa labada qof inay ismaqlaan الرجال قوامون على النساء نينكو أساقا أضي أساقا هوغانكا هيا قاريقا هالدرا والباوضة ديارة محالي مركبك وحاد أوغاتان إلهي أبوري كونكن قبريا كو أبوري نينكنا أبوري طبيعة دينا كلا يقانا أساقا نينكا هوغانكا أديبي maxaa hoggaanka loogu dhiibay reerku inay raaxadiisu ay sii daa'imto وإلا هوانكو way caatifo badan yihiin laba mid weeye in lagu dhiibi lahaa iyo in asaga loo dhiibo iyo in la idin wada dhiibo suurtagal ma in la idin wada dhiibo haddii qof loo dhiibi lahaa rabbi baa u doortay xakiim weeye asagana garanaya meesha ku haboon idan as-sam'u wat-taaca gabadhu marka waa inay zawjkeeda ateecdo ninka laftiisu raga qaar baa khalad ka fahma يعني ما أهم معنى هذا هوانك إنا لما قل هوانك قضب بانك هذه دونا سيدا الله وذا تشانيو قرق الله وذا هدليو قوانك سيدا الله قادنيو قادال بانك هذه دونا لكن ما دون إنسان قيس ونكسر إنا النغتان أسرة سعيدة إنا النغتان لما أنا ونكسر إنا النغتان ما شاء الله ما دون إنسان وإنا إسأطيعلان وإنا إسمقشان وإنا احترامتان قضب بانك هذه دونا أساقنا احترامك إذن السمع والطاعة خاصة هوانيدو إني نينك هذا وهوغانسنتو وحان معصيهين ساسور النبي محمد نبري صلى الله عليه وسلم لبنن اسمق بكران هل لبنن اسمق بكران وحا اسق بكرا والله بيدك ساسور إلهي نوغوتا لقال تبارك وتعالى قبلوا مركب وإني الدور كاقرتو السمع والطاعة قضب كالشناد الراحة القور كلمانها لقو قارو والابتسامة والكلمة الطيبة محاكو ديدي موصوت قريهنا waxa ka maqan way illa isu dhoo la cadeeyo horta ma ogtahay inay sadaqa tahay ha ibtisaamadu waa sadaqa wallahi ajir ba lagaga qoraya ilaahay agtiisa lagaga qoraya cidad u qoslayso waayo waa midda waa gabadha dumar oo dhan intaad dhaxmartay tiri adiga qurux waa adiga sharaf waa adiga indhahayga midda u roon waa adiga hadalkayga midda u macaan waa adiga naftayda midaan ku aaminay waa adiga jirkayga midaan ku aaminay waa adiga reerkayga midaan oga soo tagay waa adiga yaa waa qofkaad u qoslayso waa ninka intaad ragoo dhan soo dhex martay tiri adiga raganimo adigay kugu dhan tahay ninkaa qurux badan oo kaa halyaysan oo kaa sharaf badan oo kaa raganimo badan
dumar oo dhan baan kaaga soo dhexbaxay reerkanagii baan kaaga soo tegey hooye macaan baan kaaga soo tegey idan labadiinna xaq isu leh inaad isu muusotaan ood isu qosashaan weliba muusood run ahoo dhab ah sidoo kale muusoodka waxaa dheer alkelimatu alxulwa kelimada macaan xabiibtii in badan oo ragga iyo dumarkeenna ka mida isma dhahaan raggu waxay raba inay dhahaan warawa tii carruurta dhashay war tii awey maxaa la yidhahdaa awey tii sidan ahayd awey islaantii reerkan ahayd awey yaa akhi maxaa kuu diiday inaad dhahdo awey saaxiibtay awey sidiiqdaydii awey xabiibtaydii yaa caa'ish buu nabigu ku dhihi jira caaisha magac oola bax haweenaydaada ma garan sir baan rabaa inaan kuu sheega maanta waayo mafaatiix badan baan bixinaynaa maanta ninka ka faa'iidaysta ballan waxaad arki doontaa inaad noolal cajaa'iba ku noolaato laakiin hal iga ballan qaad ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim inaad isbeddesho ayaa lagaa doonaya adu marka noloshaada bedel oo ibtisaamada la imow kelimada macaanna la imow kelimada macaan magac oola bax xaaskaaga ayna cid kale kuu aqoonin yaa magac inaad oola baxdo marka ay magacaa maqasho ay farxayso gabadhya ninkaaga magac oola bax oo u bixi markuu maqlo uu farxayo carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isjeceshihiin carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isku soo dhowaateen carruurtu markay maqlaan ay leeyihiin allah yaa aniga tolow aabbahay oo kale ma heli doonaa ay gabadhi leedahay ninka i guursan doona tolow aabbahay oo kale ma noqon doonaa ha wiilkii uu leeyahay allah tolow aniga hooyaday oo kale gabadh u dhiganta ma heli doonaa fartu dhexda uu ka qaniinaya soo cajaa'ib ma aha waa waxyaa badan weye idan kelimada macaan iyo hadalka macaan iyo ibtisaamka iyo dhoolla caddayntu waana sadaqa quluubtiinana way isku soo dhowaanaysaa qodobka lixaad ashukr horta shukri ilaahay baa leh oo mahad ilaahay baa leh laakiin nabigeenna dhegayso sala allahu alay wasalama man laa yashkur innaas laa yashkur illaah qofka aan bini aadamka wanaagga u sameeyey aan u mahad celinin rabbiga abuurtayna uma mahad celiyo allahu akbar u fiirso seena oogu mahad celinaynin shukran waad mahadsan tahay way maanta guryaheennu yacni guryaheennu waxyaabahay la dumeen waxaa ka mid a yacni in kelimadaa la waayo waad mahadsan tahay yacni guriga u fiir tusaalaan ku siinayaa ninkan tusaale gabadhaan rabaa ninka inaan tusaale gabadha u siiyo maalan ninkii baa maanta baxay aan ku hormariyo gabadha kadibna gabadhii gurigay kuu hagaajisay allahu akbar guri nadiifa bay kuu diyaarisay sariir cajaa'ib badan bay kuu diyaarisay lidaraja hadduu gurigaa daksi soo galo 6 biloodoo xadhiga bay u jaraysaa daksiga guriga carafta idgoonka ayadaa ka daran quruxdan kaga hadli doonaaye cuntay jikaday kuu gashay qiiq baa ku baxay cuntadii bay isu dheelitiraysay basasha bahaaraadka cusbada wixii oo dhan saliidda yaynan caloosh ku xanuunin yuusan ku jiranin daawo ku dar caafimaad waxaasoo dhan bay isu dheelitiraysay qudaartii adduunkii kalluunkii hilibkii maxaa la mooskii adduun oo dhan bay isu dheela tirtay mar alle markay soo gasho aad soo gasho adigu oo alaabtaa laguu dhigo ood aragto gurigii oo quruxdiisa aad la yaabi gabadhi ood moodo midhaha hohobka la yidhaahdo guduudka oo adigay saa kugu isku diyaarisay ragga qaar baan ogeyn moogtahay markaasaa cuntadii laguu soo dhigay shukran ma dhihi laaday waxaan maanaad ii diyaarisay oo maanaa jika ii gashay yaa oo ma aniga dartay intaasoo saacadood musqusha ugu jirtay shukran kelimada waa cajiib ninka marwada kaa dhigay ee guriga ku fadhiisiiyey yaa boqoradda kaa dhigay melikadda kaa dhigay yaa xoolihiisoo dhan ku siiyey sharaftaa kuu yeelay gabdhaha kale kaa sara mariyey carruurtaa wan wanaagsan ilaahay kaa siiyey eed jeceshahay shukran intaa ma dhihi weyday idan reerka wanaagsan sacaadadu waxay ku dhammaystirmayso waa kelimatu shukran waad mahadsan tahay zawji alghaali wa zawjati alxabiiba waad mahadsan tahay
qodobka kale oo toddobaad asabru doonaysaa qoys wanaagsan ma doonaysa inaad raaxo ku noolaato asabru allahu akbar horta in lasu sabro oo ma waxaad guursatay malaa'ig soo maada guursanin bashar soo maada guursanin insaan soo ma ogid nabigeenu inuu yidhi sal ly slama kullu bnu aadama khataa haye soo ibni aadam oo dhan ma gafo nacam wuu gafaa weliba waxaan kuu sheegi waxa idinka dhexeeya wax walba idinka dhexeeya marka hadduu wax walba idinka dhexeeyo de waxbaa khaldamaya caqligii baa idinka dhexeeya maskaxdii baa idinka dhexaysa طabcan xoolihii baa idinka dhexeeya gogoshii baa idinka dhexaysa musqushii baa idinka dhexaysa qaraabadii baa idinka dhexaysa carruurtii baa idinka dhexaysa sariirtii baa idinka dhexaysa shahwadii baa idinka dhexaysa candhuufta idinka dhexaysa jirhkiina iyo dhididkiina idinka dhexeeya ma waxaad leedahay mustaqbalkii baa idinka dhexeeye dadka intaa wax isku darsaday isma qaniini karaan maya wa ismaan dhaafi karaan oo wa isqaniini karaan oo guurku ma aha roog guduudan oo laysu goglo mana aha ubax iyo wuruud ma aha oo keli aha yacni guurku wuxuu leeyahay xanuuno iyo abaaro iyo cudurro iyo faqri iyo colaad iyo dhibaato iyo ismaandhaaf iyo is-afgarad waa iyo ayuu leh idan ma doonaysaan qoys wanaagsan usra saciida raaxa leh lamaano raaxa leh ma doonaysaan isu sabra sabarkuna ilaahay wuxuu gaadhsiiyey darajo weyn inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab xisaab la'aan baaba la siiyaa maalinta qiyaamo hal tusaale oo cajaa'iba labadiina qabsada gabadh la yidhaah laba tusaalo zawje iyo zawj idinka siiyo ma maqasheen saxaabi abu talxa la yidhahdo iyo gabadha la yidhaahdo umu sulaym radia allahu tacaala canhuma wiilkoodii oo mayd ah bay aroos ahaayeen ilaa daraja sabarka intaa dhan ay umu sulaym tidhi caryaa ninkayga u sheega inuu wiilkaygii geeriyooday allahu akbar waa gabdheheenna salaan qaali a baan u dirayaa gabdhaha soomaaliyeed meel walbay adduunka ka joogaan maxaa yeelay gabdhaha soomaaliyeed qiimo iyo sharaf bay leeyihiin xaaladda ummadda muslimiinta soomaaliyeed maraysana qayb weyn bay ka qaateen jazaahuna allahu khayran waxaanse doonaynaa faraskana usha ugu sii dhufanaynaa inay sii dheereeyaan sow ma aha haa inaad sii dheeraysaan baa la doonayaa umu sulaym wiilkeedii oo meyda bay aroos gashay nacam aroos bay gashay sabarku meeshu ka gaadhay waatuba gabadha awooddaa way isqurxisay qurux meesha ugu dambayso jikaday gashay cunto nin aroosa loo sameeyey samaysay wiilkeediina waa meyd abu talxa yimid albaabkuu soo furay assalaamu calaykum ka warran wiilkii hadda unbuu ugu dhaqaaq yar yahay beenta way iska ilaalinaysaa abu talxa inuu wax fahmana ma doonayso waa uu farxay way soo dhoweysay cuntadii cashadii bay siisay allahu akbar cuntadii cashadii ayay siisay kadibna maxaa dhacay xaaladda iyo arrinta dhex marta nin iyo xaaskii baa dhex martay ina waa faraxsan yahay sabarka intaa dhan weeye midda aanu doonayno labada qof inay isu sabraan sabarku marka qiimo badan buu leeyahay sacaado iyo liibaan ma doonaysaan lamaanaha muslimiinta ahow asila labada qoys ee idinka dhexeeya xidhiidhiya waxaad fiirisaa wiilkii ama zawjkii oo ku dhahaya gabadha yaa aabbaan wacay waa aabbaheed hooyaan wacay waa hooyadeed lacag baan u diray hooyada iyo aabbaha kadibna hooyadii iyo aabbihii intay soo wacaan gabadha ay ku dhahaan hebel baa maantana soo wacayo lacagtaa noo sodo waad mahadsan tihiin intee in leg bay gabadhaa farxaysaa intee in leg bay ku soo dhoweynaysaa limaada halka ila fiiriya soo ayada ma jeclid gabadhya soo ninka ma jeclid waan ogahay inaad dihi haa waan jeclahay wiilya soo gabadha ma jeclid haa waan ogahay inaad dihi waan jeclahay idan hooyadii kuu dhashay wiilkan aad jeceshahay
iyo hooyadii kuu dhashay iyo aabbihii kuu dhalay gabadhan aad jeceshahay in la jeclaado maaha haa in la jeclaado weeye sodohda iyo sodonka sodonka iyo sodohda in la jeclaado waayo haddaan gabadhaydan xaaskan jeclahay hadda ayaga ilaahay adduunyada sabab iiga dhigay tabaaraka wa tacaala idan ma doonaysaa sacaado ma doonaysaa liibaan mid walba midka kale ha xidhiidhiyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa qodobka sagaalaad kaasi kii sideedaad ba qodobka sagaalaad asidq run ku wada dhaqma daacad ma taqaanaan haddaad doonaysaan lamaano raaxo badan inaad noqotaan oo isku raaxaysataan daacad isu noqda khayaanadu ilaahay ma ogolo nabi moxamed ma ogolo sala allahu alay wasalam reeraheenna waxyaabaha inta badan burburiya waxaa ka mid a khayaanada sidqi ku dhaqma oo run ku dhaqma oo daacad ku dhaqma yacni gabadhan daacad kula dhaqan hadal daacada iyo ficil daacad ah iyo dhaqan daacad ah iyo naxariis daacad ah iyo xubbi daacad ay kaa tahay iyo mawaddo kula dhaqan war gabarh yahay ninkaaga kula dhaqan run iyo daacadnimo haddii qodobkaa laga tago reero badan ayaa burburaa qodobka kale alixtiraamu almutabaadal alla qodobkan qiimo badana alla qodobkan macaan badana alla qodobkan weynaa qofka fahma yacni waa maxay alixtiraam labada qof midba mid kale waa inuu ixtiraamo waa inuu naftiisa ka dooro waa inuu walaalkiisa u dooro inama almu'minuuna ikhwa alla saasuu leeyahy tabaaraka wa tacaala mu'miniintu ayagaa walaalo ah marka dadka walaalahaasoo aduu ma soo gelaysid dadka intooda badan ilaa man raxima rabu lcibaad walaalnimada la sheegayaba ayaga tirada oguma jirto markay meelaha wax laga wacdinayo xataa wadaadada in badan oo ka mid a markay meelaha wax ka wacdinayaan masaajidada inama almu'minuuna ikhwa islaantiisu kuma jirta day nacam islaantaadaa ku jirta fa aslixuu bayna akhawaykum islaantaadaa ku jirta almu'minu almuslimu akhu lmuslim islaantaadaa ku jirta laa yadlimuhu islaantaadaa ku jirta ninkaagaa ku jira idan labada isqabta xuquuqdii walaalnimaday isku leeyihin oo xuquuqdii islaamnimaday isku leeyihiin soo saas ma aha bala alixtiraam xagga hadalka xagga carabka xagga ficilka xagga dhaqanka xagga qalbiga xagga gogosha xagga isu dooridda alixtiraam ya laba qof or is-ixtiraamaynin oo gabadha garan weyda ninkan qiimuhu ugu fadhiyo ninka aan garanaynin gabadhan qiimahay ugu fadhido haddee ixtiraam dhexdooda ma yaal ixtiraam waa qodob muhiima wey alixtiraam wataqdiir bimacnaa ninku waa inuu u arko xaaskiisa hadiyad iyo hibe ilaahay uu siiyey inay tahay khayr allah ilaahay baan ku shukrinayaa ilaahayga ii kaa dooray ya salaam ka waran hadduu ninku xaaskiisa saas ku dhaho ilaahay baan ku shukrinayaa ilaahayga adiga ii kaa dooray ee dumar iiga kaa dooray maxaa yeelay ilaahay waa ijecel yahay ilaahay inuu ijecel yahay waxaan ku garanayaa aduuba zawjo iga kaa dhigay ka waran gabadhii ninkii hadduu arko xaaska oo tukanayso maa sha allah oo maxaad tukanaysay saacaddan oo kale maba la tukade oo marka ay dhahdo waxaan u tukayay ma garanaysaa haa ilaahay baan u mahad celinayay ya salaam marka uu yidhaahdo oo maxaa nugu soo biray oo nicmo ah oo ay dhahdo markaa ma taqaanaa xabiibi waxaan soo xusuustay qiimahaad iigu fadhido iyo sharaftaad iigu fadhido iyo meesha aad i gaarsiisay yaa markaan eego maba qaadi karo waa shay culus maba qadarin karo saa daraaddeed intaan soo weysaystay yaan ilaahay mahad u celiyey alayh salaam ninkaasi wuxuu hayo o dhan buu ku siin dahab cusub buu kuu soo gadi dhabannaduu kaa dhunkani wuxuu kaa dhigayaa marwo midda ugu sarraysa nacam alixtiraam almutabaadal waltaqdiir nacam labadaa waa inay meesha i taallo qodobka tobnaad fahmu lmas-uuliya labada qof waa inay mas-uuliyadda dhexdooda taallaa waa inay fahmaan allah maxaa ka weyn ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa meeqa aayadood buu mas-uuliyadda ragga iyo dumarkaba ku sheegay rasuulu lhudaa calayhi asalaatu wassalaam meeqa axaadiid buu noogu sharxay nabigu sala allahu calayhi waaalih wasalam ninku xaqee buu leeyahy gabadhu xuquuq bay leedahay ninkuna xuquuq buu leeyahay ayib xuquuqdaa waa in la fahmo
حقوق ذا وين قلبي قشو أو إلا فهم محاكا معناه وحاكا معناه قبل حق اللي يقوليها إني بحيصه حق إلى ذا هنا إني طلبت نمكو حق اللي يقوليها إنه بحيه حق وحاسك كل حق وحاس كله إنه طلبته تاسوا غضب مهم أوي نمكو وحلو لها حقوق أذوين وحلو لها مرشدي وحي اللي حرن لها ماشي اللي دقي لها مسكنكي وحلو لها النفقدي وحي اللي عوني لها أولا داودي وحبرشدي داود أكتين الرجال قوامون نمك مسؤولية باصارا بلن أضق بو قلي القرآن كله يكون شيء تبارك وتعالى قبلنا وحلا ربا إطاعدي إيا نمك إني أطيعه أي عنتدي إيا قرقي سودي واجباتك ودن صريرتي وموضوع دهر واي أو أن دقائق لو سو كوبي كرين ولذلك قضبضا وحنو دورتي إن قضب وتلمامو سي أن فائدة بدن أقارو دقائق سو صعدة أنا واحد بدن أوجتين لكن قفك عاقلك أسقنو زياد سدا أو كرسدا الربا محن ربا إن عنده فهم المسؤولية لبدا قفو إن المسؤولية مد والبا مد كلا كسارا وإنه فهمها إن الدرين كوا مهمة درين كوا مهم هذا الأرض أدو حاجة سوق هذا أرض نو سوقد أنت ده هوري نوجا سوقد هي بيتزا هوري نوجا سوقبو هي مقاهي وح نوجا سوقبو سيجب بدل ما أنت أي سميان أيوة مسؤولية دي أنت ده بك عرارية هذا وضع ركتين خير بدن بيكون دمي إلا من رحم رب العباد تبارك وتعالى قضبك كوبي تبناد وقضب مهمة فهم النفسيات بليد هذا labada qof ee lamaanaha raaxa doonay inay raaxa ku noolaadaan waa inay mid walba midka kale uu barto waxa uu yahay horta kale aan isbaranne warqad u dhiib waxaad bal waxaad ku soo qortaa waxaad jeceshahay su'aal baan rabaa malaayiinta dhageysan doonta kalimadan ama dhageysanaysa su'aal baan rabaa inaan weydiiyo lamaanaha ayaan rabaa inaan su'aal weydiiyo سؤال شيء إسكا ويديا ما إسكا ويدين هي جواب بان ربعين أنو هلو جوابت أنا وأرين كحرا ليبانت إيا السعادة دا راحة داخلي جاء إيا متك برنامج وصو بيحي دون مستقبلك ولي ما يسوي ديسين ورمحات شعشة أو محاد نعبتها هاي أو محاد كردبة أو محاد كفرح ذا أو محاد كعروتا أو محاد كدكتا إيه سوقر إن الله أنت قضب أتشعشهاي سي أنك وصيه أنت قضب نعبتهاي سي أنكاga ilaaliyo bal u fiirsada hal tusaale idin ka siinaysa u fahamtaan labada qof marka inta isku waafaqaan haduu ninku u yiraahdo anigu waxa iyo waxaasa iga xanaajiya goortan saxanaaqo waxaan jeclaa intaan baxo inaan ragga la soo sheekaysto masaajidada iyo meelaha la iskugu yimaadiyo maqaaxiyaha intaan asxaabtayda la soo sheekaysto hadhowto waxaad arki doontaa anigoo hadiyo ku wada يا شوكولاتة أنا جو وضع وبح أنا جو وضع أو فرح سنبا كو إيمانيا داودي دو وإنت حتى نسالس كو أغانين نينكي مركو بحو قبل وحيلاد ها أنا دي قلت ليسا صومو الباب كي ساقسا كليتي يكون ليسا إما غشي وانكو فري ما يقدر وانكو قدري صدح ما يسغالي قدك وايد عضي ها خطر صوما لكن كور هدي دين لهيد ما دي الهديبكا ومايا قبل ما وحيد ترى ودان عروضه هي وان اسدودوبا قولك تشيف كان قلا بستان اسكوددا ليلى ما هلو هي نيكا ساسا لدونيا كور هدودو بحسن دوبيسا استك لا مربو والا دتشي جويغا اذا فهموا النفسيات وامدا نغمقن صدن سنه لسخبا لمانا غرانيو waxa laga caroodo xisaabtii sanadkii koobaad ba xataa aan taala waagan jabada deganayn waagan guriga deganaa xaafada howlwadaag waagan deganayn madiina waagan deganayn xamarjaja waagan deganayn boosaaso waagan u guurnay halkaas la leeyahay wada farweyna 30 sano ka hor bay ahayde dhikru aljafa ba'da safa jafa wax laga la soo dhaafay oo laga soo heshiiyay qofka soo celiya asaga cudurka iyo daandaansiga wada iyo boogta inuu danqiyo waa in waxa la xiro بابكاس فهموا النفسيات رنتي وقضب إن لقوا استاجا آدي آد مضون وين صادرات بوحالي هذا صدح مرحلة بالا مرة قيس كوناكسن كو التعارف هرتا اسبرنو واحد بسنة يسئي شيء سي أنكاجا إلاليو قضب كلابان التآلف ولا اسكو سودا وهذا ولا اسكو سودا وهذا ولا اسكو سودا دركا يا ولا اسكو سودا وهذا قضب كصدحانا التكاتف قربها بالله يسخب صدا صدح مكاها بابي صدح لا مكانومي التعارف أسبرنه بلا شو ناكسن
كدبنا التآلف والتقارب والاسكو سو دواانيا maxaa hadhay التكاتف marka dambe in garbaha la isqabsado labada qof is qabsadaan waxaan arkaa waqtigu aad igu socda waxaan rabaa inaan isku soo aruuriyo qodobo badan aan ka taga bidin ilaahi tabaaraka wa tacaala waxaa kamid ah qoyska wanaagsan goorta ay wada hadlayaan inay isdhageystaan qodobka waa muhiim qoysas badan bay ka maqan tahay qoysas badan baa burka iyo qaylada iska soo qaata laa bar horta hala isdhageysto al-insaat السمع والإنصات horta in la isdhageysto waa qodob muhiima soo garanaysaan xadiidkii dheeraa zarca ee fi saxiix bukhaari caaisha inay nabiga oga sheekaysay 11 dumara zawji cayaaya wuu dhegeysanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam zawji almasu arnab wuu dhegeysanaya ida akala lafa wuu dhegeysanaya zawji maalig wama maalig wuu dhegeysanaya qiso dheer 11 dumar ah oo waqtigii jaahiliyada sheekaysanaya ayay caaisha u soo bilowday rasuulul huda sallallahu alayhi wasallam markaas aad u dhageysan markuu dhageystay wuxuu yiri anigu sida uu abu zar'in zar'in u ahaabaan ku ahay waa qisada waqtigeeda u baahane hadii waqtina la siiyo biidni ilaahi tabaaraka taala in umada loo sharxo arrin mudan weeye laakiin kuma furayo ayuu markaa ku yiri marka in la is dhageyso qodobka kale almadhu labada qof inay is amaanaan allahu akbar ninkaaga oo qurux badan marka artayna dhahdo horta adiga يا إيا ضيح كينا قروح بدن قبل ده وكل هذا هرت أذيك يا ضيح يا قروح بدن مرخال كل شكل وحياة قلا كينا قروح ذو بدن محاكا قص القروح بدن أو محاكا الكعد أو محاكا قروح بدن أو محاكا تما وناكسن أو محاكا لبس وناكسن يا الله نمكم مركو حال كيسا كله بلن باكو قاضية إني هل سنكو وشقيسو كلمة ذا سيدة هاتري كشتو إني كده ماتو دمركو أمانته ويتشعليهن أمانته رمته ويتشعلين رجنا ويتشعلين أمانته لكن أنا قلت دتك بنانك تشوغان أمانة هوانك درس كأبا لا أمانة رجع درس كأبا لا أمانة لكن لبدا إسقبت اسمه قرآن شكرا يا أمان اسمه قرآن هذا ما وقت كان كجارة وقت جوادري هاي مدول بأدلة أدو دير أي لهذا هاي سطر العورة يعني كتمان السر ما أجده كتمان السر لبدا قف سعادة دونية وإلى سرت قريان يا الله ما أنت قريهن محا بربرية ما أنت قريهن محافسات كردي اسكفيري وإنا سرت قريسة يا أمة الله أدونت إلهي إلهي درتي بانكوش على سما أدونك إلهي درتي بانكوش على وحن دوننا خير وناكسن أو نظيفة إن النور إسمان ومدى الصوماليات إيه سياسيا إيه اقتصاديا إيه ثقافيا إيه عسكريا إيه أنت وأبربرتي وحن دوننا إني بلشدة إيه كسر لسنتا أيانو دوننا أو خير وناكسن أو إلهي يقانا إني كسر بحان سادر هذا سرت قرية قري أو سرت سريرت قري أو بقى عاشرية نكتة وحكوش شيء جاي دقيسو ما مغلسة نكتة وحكوش شيء جاي مرك عادية نكها واحد أحمران كعمك يلشر هوسبا لور دقاية صوصان واحد الله يهدم مأرك يزيد أمس كدبنا نكها واضح الله كاريده لكن مرك لو الله ما قرنيسا يا ومرك عروت السيحلان هي ميسك ويلا صادق قدار تفاح يا موس يا لين يا أبح يا بيعت ها أدوكنا هوبت أن شيء إسكا صادق نكون سيدا وكله مركا ويا مركا لدونا يا محي إن وحي سر أهوصل إسكو شيء لكن أبناكم بحصدا هالو ما مقا شيء نينك سيدو يري نكيما قرن ساس يري كدبنا ميد نولش كوفا شلانتي أيا وحيلة ها أنا داودي سكوا قان ساسا لدها أو ساسا لدها أو ساسا لدها بوك فانتشروا في الأرض صومها إذن وإن لا أستر محل هذا سرت قرية وإن لا قرية قضب كان إلى دقيسته تجديد الحياة الله أكبر الله قضب كان في عنا أو معانا أو ونكسنا الله قضب كان يا وقت في عن سوا معي ورنولش بدله نولش وحيوبا أنت هاد بإن لبدله ده ولا بدله وذركتين فدق ولا بدله إسراف كم أقولي وحن كهلا يا إسراف يا حد قدو ما لكن سيدا داها اللو بدلو دهب كاللو بدلو دروع ذا اللو بدلو فدق اللو بدلو وإن هذا الكاللو بدلو أو لبس كاللو بدلو أو موصوت كي قروح ذا اللو بدلو أو قوغوش اللو بدلو يا الله قوغوش وإن لو بدلو هادبان نوع عصب وإن قوغوش وإن مر بنان كاللقاسو عنتيا وإن مر عنتدا لا إسلكريا وإن مر لأورتما سيدي النبي عايشة سمين شرين صلى الله عليه وسلم وإن مر سفر لوذا آذا
يا الله وين هو الله صوّد قاتا وحيالها صومالي ذا يكون رفاسين وحاكمي نولل هالميل تاجن بريس باستو سيدو ميز إن الشيخ الصومالي يري markay dumarku gogosha ka calaacaleen oo dhaheen ragga Soomaaliyeed gogosha kuma fiicno ayaa ninba u jawaabay wuxuu yiri oo maxay gogosha ugu fiicnaan karaan rag aad bariis iyo baaso suuga badan aad maalin walba siinaysaan calool weyn iyo luga dhuudhuuban minja dhuudhuuban soo labada ma soo bax Soomaalida hore waxay u tiri nin walba intuu cunuu ciidamiya Soomaha war dumarow raggiina nafaqaysta raggiina cunto wanaagsan siiya oo qudaar siiya oo kalluun siiya oo geedaha ma taqaanaa nafaqada iyo hormoonka ziyaadada ka dhigaya siiya oo moraalka u dhisa oo isu qurxiya markaad arooska aadaysaanba duruuc cajiib oo Dubai laga keenay baa isku qurxiyaayo intaasoo lacaga lagu soo gaday isqurxiya raggana sidoo kale ayaa laga doonayaa war maalin kasta una soo taagnaanina xaaskaaga hawada raaci oo hawada u raac oo safar la gal oo banaan ka soo cuntay marka qaarkood oo isla sheekaysta oo marka qaarkood meelaha fiican ee badda isla aada يا أو جوجة بدلة جوجة إلا بدلة وحالة تجديد الحياة الزوجية يعني روتيني هذا ما تدرون هل نحضر برتو نولش مسعون يسوع قضب كله القدوة قيس كوناكسن وقيد قيس لقود يدو فرت لقو فيقو قيس كحق عبادة حق طاعة اسمقلك كلا دنبينتا أخلاقدا دجناشها محل الدعوة إيه دينتا ديق سنمدا واحترك ضدك فرتها لذكو في قيا إلا ذي كعوذ بالله استماها ودرس كلا وركوان يا نسود شيء درس نمدينا وإن لقو فرحة وقضى مهمة جدا أسجنا سيدو كلا وحاجر وحلا الشعور الداخلي قيس كوناكسن gudaha waxa ku jira iyo dareenka hoos ku jira waa in moolka iyo biyaha iyo badda iyo webiga iyo ceelka biyaha hoostooda waa inay iska arki karaan labada qof waliga ma dabaalatay dadka dabaasha aad ku yaqaan ma aragteen sida kalluunka u dabaashaan iyo xaaska moogtiin inta ay badda galaan biyaha galaan ayaa indhaha biyaha lagu kala qaadaa qofka kala arkaysa iyo xaaska arkaysa kalluunka arkaysa laakiin ninka dabaasha yaqaan labada isqabtay lamaanaha وإن النقدان لبا قف ودباشة سفي عن ويقان وبيا هوسود إسكا أركيا محان وجهدا قلوبتا إلهي بطالة عنكرة لكن وإن الحاس كاغو وحي تعشاي إيا وحا أي قلبي جيدا كتشري كرا وإن تصوران كرتو كدبنا انت المالين كدن بسوق إسور عدان آد أركتو أيضا وحونا أكسنفيرين إيسا ها أدو لكن إشاد كلا سعوتا يا مالين دم داوسو دمرتو أيادو كينيسا مركزي وحكولد أي أونيو ياكو شيء سين أوربي هداد أكت تمركونا رجع دي أدو مية قانان أنتو ضب بدنه الرماء سكر خلب كلا وحن لي هاي وقت جاي عيد سنة الهدايا لبانوه وأكو وحسو هدية يا وأكو وحسو هدية هديدو قسم معها إنay qiimo badan inay leedahay lacag badan iyo $100 in laga soo bixiyo ma aha iga rumaysta tajrubeeya xabad xanca ah oo afka carfisa xabad maxaa la yiraahdaa shukr oo doctor xaaska u jeceshahay wax yaro ubax ah yaa wax yaro maxaa la yiraahdaa qiimo badan shay guriga isleedahay ayadu u wanaagsan yahay silsilad yar oo xataa dahab ahayn maalinta aad u keento xaaskaagu siday u farxayso bal ila tijaabiya arinta yaa qalin ibug maysata bal inta qodob ka qorato bal arinta samee waxaad arki doontaa xayaato raaxo noolal isu soo dhawaansho waxaadan weligaa xaaskaaga ama gabadhu ninkeeda ku arkin walidaalika baa nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis sanadkiisa maxaa la yiraahdaa insha Allah xasana tahaadu tahabu ها علماء قارب حديث وحكى شيء سند كيسة تهادوا تحابوا نبينا فعل كيسنا ساسوها صلى الله عليه وآله وسلم حتى نبيه خديجة صاحبة أي أهدي إنشري نبي عليه الصلاة والسلام قضب كلام الثقة يا الله كالسوني لبدا قفوين يسوق كالسون هذا رجع قاربة مصير بدنه هل كان يا صومري دمر كقاربة مصير كودو ميل جرا هذا أذق أي يلا سعتي أي برفون كاسو عرفة محوية وألا بدأ قفينا إسآمنان والله بدأ قفينا يسوق كالسون هذان لبدأ قفوين مدول بميتك كلا نولش يسوي سيو لبتشد لكن هل روحه وين يشان كالسوني دوا مهم كالسوني دوا راحو
kalsoonidu waa deganaan, kalsoonidu waa itmi'inaan, kalsoonidu waa xasillooni, kalsoonidu waa xayaato. labada qof waa inay isku kalsoonaadaan. afiqa ayaa la yidhaha. alqanaaca qodobka kale, allahu akbar, allah qodobkan weyna oo qiimo badana waa inaad isku qanacdaan. ninkaaga waa inaad ku qanacdo horta siduu alla u abuuray iyo wuxuu alle kugu soo dhiibay iyo siduu kuu maamulo waa inaad ku qanacsan tahay. gabadhu ninku waa inuu xaaskiisa ku qanacsan yahay. alqanaaca adduunyadu waa laga tegayaa, qiimo male laguma qanco adduunyada xoolo. la qurux wax ma qanciso. wax qanciya waa iimaan iyo shakhsiyadda, jiritaanka qofka iyo dareenka, nuxurka qofka ayaa lagu qancaa. walidaalika baa saciid ibnu caamir aljumaxi radia allahu tacala canhu ardaah asagoo ximis meesha la yidhaahdo madax ka ah ayaa cumar bin khataab baa wuxuu yidhi bal ha la ii soo raadiyo maxaa la yidhaahdaa fuqarada muslimiinta. cumar bin khataab baa marka fuqaradii baa lagu soo daray. cumar bin khataab baa marka lacag u soo diray. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. islaantii baa soo bodo waxay tidhi ma madaxweynihii muslimiinta la dilay? wax ka weyn. ma muslimiintii baa dagaal lagu jabiyey? wax ka weyn. wax ka weyn ma garanayo. adduunyaa soo gashay gurigayga si ay aakhiradaydana u fasahadiso, aakhiradeenna aniga adigana noo kala kaxayso. naga saar bay tiri. qanaaca baa la yidhahdaa. ashuura, labada qof inay wada tashadaan. inay wada tashadaan. nabiga siiradiisa akhriya sala allah alay wasalam, xudaybiya yaa badbaadiyey saxaabada cadaab iyo ciqaab ku soo degi lahaa. umu salama zawjada nabiga sala allahu alayhi wasalam. umu salamaay saxaabadii amarkii bay qaadan la'yihin. wartimaha xiirta, xoolahana qowraca. adigu bilow yaa rasuula allah, yaa adigu bilow ayay ku tiri. waxaan ku khatimayaa biidni illaah oo wax lagu khatimaba ah fii suurati aruum aayadda 21 waxaan aayadda u sheegaya raqamkeeda waa aayaddu weynankay leedahay. qaala tabaaraka wa tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu doonayaa inay labaanuhu isjeclaadaan, isuna naxariistaan. waxaan ku soo aruurinayaa jacaylkiinu waa inuu noqdo sidii geed yar oo la tallaalay kadibna la waraabiyey oo jacaylka iyo intaan soo sheegayna oo dhan lagu waraabiyey. marka dambena xididadiisu ay dhulka galeen. haye dhulka markay galeen geedkiina uu kor u baxay. markuu u baxay laamo waaweyn uu bixiyey. laamihii waaweynaana ay midho bixiyeen. allahu akbar. midhaha markay bixiyeen maxaa dhacay? midhihii dadkii baa cunaya, xoolihii baa cunaya. wuxuu noqonayaa geed la harsanayo oo lagu raaxaysto. indhihii buu u roon yahay. haye geedku indhihii buu u roon yahay. haye oo cuntadii baa laga cunaya. nacam, geedkaasoo kale inaad noqotaan oo beer iyo biyo intaba uu dhex yaallo reerka wanaagsan. saas ayaa la doonayaa inay u dhaqmaan. fa as'alu allah, ilaahay waxaan weydiisanayaa qoysaskeenna inuu qoys wanaagsan uu ka dhigo. isku daya inaad arrimaha dhaqan gelisaan. ballan waxaa igu ah insha allah inaad usra saciida aad noqotaan. intaan kaga kulmayno xalaqadatan ku xigta waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah والسلام عليكم. خذ يا كتاب الله كل حياتي، شرف كياني في الوجود وذاتي. أدركت